muddo 40 sano ah ayaa ka soo wareegtay maalintii ay diyaaradaha dagaalka ee dalka Ethiopia ay xasuuqi ugu ba'naa ka geysteen magaalada Boorama. Haddaba maxaa keenay weerarka xabashidu ku soo qaaday magaaladani? Maxaad ka og tahay tirada dadkii maalintaasi lagu xasuuqay magaalada Boorama? Maxay ahayd sababta Ethiopia si gaar ah ugu bartilmaameedsanaysay magaaladani? Maxaase Boorama u dheeraa colaadii u dhaxaysay Soomaaliya iyo Ethiopia? La hayso barnaamijkani oo aanu daaha kaga feedi doono xogaha qarsoon ee la xidhiidha xasuuqii ay xabashidu ka geysatay magaalada Boorama sanadkii 1984. waxay ahayd subaxnimo Isniin ah oo ku beegan 30kii bishii koowaad ee sanadkii 1984 oo haatan laga joogo muddo 40 sano ah, waxaanay ahayd subax jawigeedu degan yahay, dadkuna ay ku guda jireen nolol maalmeedkooda caadiga ah. balse mar keliya ayaa magaalada waxa ku hafsaday musiibo lama filaan ah, taasi oo uga timiday dawlad kula celowday Soomaalinimada. markii ay saacadda Afrikada Bari ku beegnayd abbaaro 10kii iyo barkii barqanimo ayaa jug weyn iyo codadka diyaarado dagaal laga maqlay dhammaan magaalada oo dhan. waa dhowr gantaal oo diyaaradaha Ethiopia ay ku ganeen bartamaha magaalada Boorama, waxaanay si gaar ah u bartilmaameedsadeen dugsiyada waxbarashada iyo xarumaha ganacsiga. meelaha sida ba'an loo baabi'iyey waxaa ka mid ahaa dugsiga hoose dhexe ee loo yaqaanay Elementariga, kaasi oo hadda la yidhaahdo Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Nuur Qaadi, iyo dugsigii hoose dhexe ee Xaawataakada hoose oo haatani loo yaqaano Galbeedi. xilliga dugsiyadani la duqeeyey ayaa ku beegnayd markii laga soo noqday wakhtiga nusa saacaha ee ardaydu ay soo biriigtaan. duqaymihii diyaaradaha xabashida ee maalintaasi waxa ku geeriyooday 70 qof, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 100 qof, sidii ay xilligaasi sheegtay dowladdii Soomaaliya ee dalka ka talinaysay. sidoo kale intii uu socday xasuuqii maalintaasi ka dhacay magaalada Boorama, waxay diyaaradaha dagaalku ku burburiyeen ilaa iyo 70 guri, kuwaasi oo ay duqaymo culus u geysteen diyaaradaha dagaalka ee dalkaasi Ethiopia. dadkii maalintaasi lagu xasuuqay weerarkii diyaaradaha ee dowladda Ethiopia ay la beegsatay magaalada Boorama waxaa ka mid ahaa 37 arday oo ay da'doodu u dhaxayso 6 jir ilaa iyo 12 jir, kuwaasi oo dhiganayay fasallada u dhaxeeya 1 ilaa iyo 5. waxaa sidoo kale dadkii iskuulka Elementariga lagu xasuuqay ka mid ahaa 4 macallin oo ka mid ah macallimiintii iyaga wax u dhiga jiray, halka ay ku dhaawacmeen 39 arday iyo 5 macallin oo kale. waxaa kale oo dadkii isla goobtaasi ku naf waayey ka mid ahaa 4 hooyo oo xaamilo ah, kuwaasi oo ku sugnaa xarunta hooyada iyo dhallaanka MCH-ka la deriska ah dugsigaasi oo dhaca dhinaca sekada koonfureed ee isla dugsigaasi. Cabdiraxmaan Aadan Maxamuud waxa uu ka mid yahay ardaydii iyagu maalintaasi ka badbaaday weerarkii waxashnimada ahaa ee dowladda Ethiopia ay ku xasuuqday ardaydii da'yarta ahayd ee wax ka baranaysay dugsigani. waxa uu ka warramayaa xasuustiisa la xidhiidha wixii dhacay maalintaasi iyo saamayntii ay markii dambe ku yeelatay isaga iyo ardaydii kale ay wax wada baranayeen, isagoona soo bandhigaya dareenkiisa la xidhiidha maalintaasi. xabaalahaad soo aragteen oo halka lagu aasay ardaydii ay diyaaradaha xabashidu ku laayeen Boorama 30kii January 1984. dhacdadaasi si shakhsi aniga ay saamaysay. mar waxaan ahaa ardaydii ka badbaaday ee dugsiga hoose dhexe dhiganaysay fasalka 5aad, marna waxaan ahaa dadkii ay maxay ahayd aadka u saamayso aabbahay Allah naxariista Aadan Maxamuud Muuse oo bacmushtarkii magaalada ka mid ahaa baa ku dhintay. subax Isniineed bay ahayd 30kii January 1984. waa samaad baan noo bariyey, iskuuladaan tagnay, fasalka 5aad baan ahaa. break time-kii markaan ka soo noqonnay bay diyaaraduhu weerar nagu soo qaadeen. marka waxay beegsadeen xarumihii waxbarashada, gaar ahaan dugsiga hoose dhexe ee Elementariga berigaa la odhan jiray, hadda Sheekh Cabdiraxmaan Qaadi baa loo yaqaanaa, iyo dugsigan hoose ee Galbeedi. arday badan bay ku laayeen, ilaa arday yaryar oo ubaxa oo markaa kacayay oo dugsi hoose dhigta. 40 arday, wiilal iyo gabdhaba leh, ayaa halkaa maalintaa lagu xasuuqay. geesta kale diyaaradaha xabashida ee iyagu weerarka ku soo qaaday magaalada Boorama 30kii bishii koowaad ee sanadkii 1984 oo haatan laga joogo muddo 40 sano ah, ayaa waxay adeegsanayeen diyaaradaha nooca dagaalka ah, kuwaasi oo ahaa nooca loo yaqaano miiga ee lagu soo farsameeyey waddankii midowga Sofiyeeti.
inkastoo ay jiraan dadka qaar iyagu sheegaya inay ahaayeen 6 diyaaradood haddana waxaa la rumaysan yahay inay ahaayeen 4 diyaaradood oo barbilowgiiba ka soo baxay dhinaca bariga magaalada taasi oo u muuqatay xeelad dagaal oo marka ay weerarka geystaan ay ugu sahlanaato inay si dhib yar ugu tallaabaan dhinaca xadka Itoobiya oo aad ugu dhow magaalada Boorama. Bilowgii diyaaradaha iyo jawigii maalintaasi sida uu ahaa waxa isaguna ka warramaya Barasare Maxamed Ibraahim Satawe oo ka mid ahaa ardaydii iyagu goobjoogayaasha ka ahaa oo xilligaasi ku jiray dugsigii sare ee Camuud. January bishii koowaad January maalin Isniina markay saacadu ahayd 11 iyo 11 minute bay diyaaradu bartaabay ka soo bixin buurta Awrdil la yiraahdo 4 bay ahaayeen waan soo kala yaacnay marka diyaaradii u horeysay halka qaxootigii daray macaani oo halka dhinaca Faaraxyo shishadeeda ayay wax ku riday waxa gantaalkii u horeeyay waxay ku riday qaxootiga iyo Faaraxyo dhexdooda ari meesha socday ku riday oo horeyntii magaalada soo gaadhay ka bacdi halkan markay ku riday midna korba u baxday laba dushay meerayeen midna halkan meelaan iskuulka wax ku riday iskuulka markaa 370 arday ayay ku durto dhiigoodii iyo wixii iyo hilibkoodii mideeda kale halkan stationka hortiisana dadkii iyo bacadlaha oo ahaan jiray meeshan imika haruurlaha la yiraahdo bacadlaha dharku halkaas u ahaa taana way ku riday magaalada la jeeray marisa meelaha bartilmaameedka tooska ah u ahaa diyaaradaha xabashida ee duulaanka ku ahaa magaalada Boorama ayaa waxa ka mid ahayd xarunta dugsiga Dareey Macaane oo xilligaasi ay ku jireen qaxooti Soomaaliyeed oo ka soo barakacay abaar daba dheeraatay oo xoolaha iyo beerahaba ka marisay qaxootigaasi oo ay meesha ku xanaanayn jirtay hay'adda caalamiga ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR taasi oo xarunta dugsigana u dhistay dadkii ka soo barakacay deegaanada Soomaaliyeed iyo deegaanada kale ee ku teedsan xuduudda Itoobiya sanadkii 1980 ka hor intii aanay diyaaradaha dagaalka Itoobiya gantaalada la beegsanin dugsiyada ku yaala bartamaha Boorama waxa barbilowgiiba gantaalka koobaad ay ku soo dhufatay xeradii qaxootiga ee Dareey Macaane sidaan arkaynay laba wax riday halka iskuulka xawata ka aadan isaaqna way ku riday macallimiin bay ku laysay halkan macallimiin way ku laysay magaalada meydku u tiro beelay dadku way isdaafayeen jahawareer iyo cabsi iyo argagax baa ku dhacay waayo markaad aragto waxaan arkaynaa annagu waan soo yaacnay iyo orodkii halka qofkii u horeysay dhaawacnaa waxaan ku aragnay meesha tuurtaay biyaha hoosteeda ayuu naga hor yimid kii u horaaye dhiig leh dhaawacan aragno weerarka markaan xal magaalada nimidnay magaaladu way qasnayd inaan iyo caruurtu way kala halaabay qof ooyo ilmihiisii raadinaya oday reerkii raadinaya oo gurigii ka waayay albaabaduna markay albaabadaas oo dhan way wada ruqeen oday raadinaya inankiisii ku ooyaya ku intuu dhaawacan yahay hilibkiisu googo'ayo haddana ordaya oo baxsanaya jahawareer dharkii bacadlahaas oo halka daadsan meydka oo daadsan dhaawacood ku xarbiyaya oo wax qaada bala oo dadka gurayina way yaraan meesha dadkii xitaa ku daatay ee dhintay ee meesha waan wada garanaya dad badan halka meydkoodu yaalay waan soo argagax nin walba qofkiisa buu raadinayay inkastoo ay jiraan wararka qaar la xidhiidha dhacdadii lagu xasuuqay dadka rayidka ah iyo carruurta aan waxba galabsan ee magaalada Boorama maalintaasi in qorshaha weerarka diyaaradaha dawladda Itoobiya ay qayb ka ahaayeen qaar ka mid ah jabhadihii iyagu la dagaalamayay dawladda Soomaaliya oo gudaha ugu jiray dalkaasi Itoobiya haddana waxa iska cadayd in ay jirtay saameyn ba'an oo ay yeesheen dagaaladii u dhaxeeyay dawladda Soomaaliya iyo tan Itoobiya sanadkii 1977 oo markaasi wixii ka dambeeyay sansaanta colaadeed ay mar walba taagneyd sidoo kalena duqeymo kala duwan ay magaalo badan oo Soomaaliyeed ka geysteen diyaaradaha dagaalka ee dalkaasi Itoobiya
markii uu dhacay weerarkii lagu xasuuqay dadka rayidka ah ee magaalada Boorama waxaa markiiba soo ifbaxay dhaliilo waaweyn oo dul hoganayay dowladdii militariga ahayd ee ka talinaysay dalka Soomaaliya taasi oo la sheegay in si aad ah ay uga gaabisay gurmadka loogu jiray in dadkaasi wax loo qabto wararka qaar ayaa sheegaya gurmad ka yimiday wadamada Carabta in ay celisay dowladda Soomaaliya taasi oo militarigii xilligaasi maamulayay aanu xidhiidh wanaagsan la lahayn wadamadaasi waxaa sidoo kale xusid mudan oo aan marnaba la iloobi karin mas-uuliyiinta magaalada Henley on Times oo ku taala duleedka magaalada London taasi oo ay mataanoobeen magaalada Boorama 2 sano ka hor xilligaasi inay ahayd dowladdii ugu horreysay ee gurmad caafimaad la soo gaadhay magaalada Boorama sidoo kalena dalka Ingiriiska u qaaday qaar ka mid ah dhaawacyadii xilligaasi soo gaadhay dadkii rayidka ahaa maalmo yaroo kooban kadib markii uu dhacay weerarkii ay dowladda Itoobiya iyo Amxaaradu ku xasuuqeen dadkii rayidka ah ee magaalada Boorama ayaa waxa magaalada soo gaadhay madaxweyne ku-xigeenkii dalka Soomaaliya ahaana wasiirka gaashaandhigga Genaraal Maxamed Cali Samatar isagoona kulan la qaatay dadka rayidka ah iyo waalidiinta ay ka baxeen dadkii iyagu ku geeriyooday xasuuqii berigaasi ka dhacay Boorama ciidana aanan ku gardaroonin carruur yaryar oo ardaa oo maqaarkood baranayay waxaa laga yaabaa dersiga ay qaadanayeen markaa inuu ka mid ahaa duruus diiniya dad shacab caadi u nool noloshiisa caadiya ku jiro magaaladiisi ku nool sidaa foosha xun loo laayay waxaan leenahay dadkii ay ka geeriyoodeen imaan Allah ka siiyo inkasta oo muddo 40 sannadood ah laga joogo xilligii diyaaradaha xabashidu ay xasuuqa ka geysteen magaalada Boorama haddana ma jirto wax xus iyo xasuus ah oo loo sameeyo dadkii iyagu maalintaasi lagu xasuuqay magaalada Boorama balse 40 sano kadib waxa muuqata ifafaalo la xidhiidha in da'yartii iyagu dhashay xilligaasi kadib ay sannadihii ugu dambeeyey ku baraarugsan yihiin colaadda dalkaasi Itoobiya kuwaasi oo qaarkood ay waalidiintooda saamaysay halka qaar kalena sheeko ahaan hadda ay ku soo gaadhay gaar ahaan gobolka Awdal iyo Itoobiya waxay leeyihiin cadaawad gaar ah 1980kii diyaarad xabashiya oo Itoobiya ka timiday ayaa Boorama rashaysay waxay leeysay mudan waxay leeysay dhalinyar waxay leeysay ciyaal yar iskool ku jira intaasi waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamij gaar ah oo aynu dib ugu eegaynay xasuuqii diyaaradaha xabashidu ay ka geysteen magaalada Boorama 30kii bishii koowaad sanadkii 1984 oo maanta laga joogo muddo 40 sano ah barnaamijka waxaa idiin soo saaray isla mar ahaantaana halkan idinkala socodsiinayay anigoo Ibraahim Suxufiya tan iyo intaynu dib u kulmi doono barnaamijkan la mid ah inta ka horreysa waxaan idinku sii dhaafayaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh